بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا ونكسن دغستيال داوديال كسو دوادا برنامجكينا ويديق دكتوركا oo toddobaadkiiba marka daawataan barta aan Facebook ku leenahay Somali Syria Hospital. waxaa barnaamijka marti ku ah Dr.Abdulkarim Ahmed Maxamuud oo ku takhasusay cudurrada haweenka. waxaan toodkii hore ka soo hadalnay dhiig karka ku dhaca haweenka uurka leh. isla markaana qeybtiisii labaad ayaan halkan ka ambaqaadi doonaa. Dr.Abdulkarim, haweenka uurka leh marka uu ku dhaco dhiig karka saameyn intee leeg ayuu ku yeelan karaa? nacam uu ku yeelan karayaa saameyn iyo dhibaatooyin fara badan intaba hooyada uurka leh marka uu ku yimaado dhiig karka nuuciisa uu yahay preeclampsia. dhibaatooyinka uu ku keeni karayo hooyada waxaa ka mid ah inuu dhibaato ka gaarsiiyo maskaxda. dhibaatooyinka maskaxda uu gaarsiin karayana waxaa ka mid ah in maskaxda ay bararto waxa loo yaqaano cerebral edema. sidoo kale dadka qaar maskaxda dhiig baa ku furma ama xinjir baa fariisata. waxaasoo dhan way ku dhici karayaan. sidoo kale dadka qaar maxaan ku rahdaa way indhabeelaan oo waxa ku dhaca waxa la yiraahdo maxaan ku rahdaa retinal detachment oo keeni karaysa maxaan ku rahdaa qeybta retinaha inay fiiqmato oo maxaan ku rahdaa waa xuub isha ka mid ah oo markaas indha la'aan keeni karaya. sidoo kale waxaa dhici karaya maxaan ku rahdaa qofkii in wadnihiisii saameyn uu ku lahaado oo maxaan ku rahdaa dhibaatooyin fara badan oo wadnaha ku dhaca uu ku sababo. sidoo kale waxaa dhici karaya qofkii sanbabkiisii xitaa inay biyo fariistaan waxa loo yaqaano pulmonary edema oo sidaasi ay dhici karto qofkii maxaan ku rahdaa inuu u baasgareeyo ama uu dhinto ama dhibaato aad u badan uu maxaan ku rahdaa ay soo wajahdo. sidoo kale waxaa dhici karaya qofkani maxaan ku rahdaa in sanbabihiisii maxaan ku rahdaa saameyn ay ku yeelato oo xinjiro ay fadhiistaan. maxaan ku rahdaa beerkii maxaan ku rahdaa sidoo kale saameyn uu ku yeelan karaya oo asagana waxa fadhiisan karaya maxaan ku rahdaa xinjir. waxaa dhici karaya maxaan ku rahdaa xididadii kiliyahoo kale inuu xiro oo markaasi qofkii maxaan ku rahdaa kiliyihii ay ka fadhiistaan oo markaasi uu qofkii u baahdo maxaan ku rahdaa in kiliyihii laga sifeeyo ama sidaas oo kale. Dr.Abdulkarim, sidoo kale haweneyda uurka leh ama xaamilada ah ee ilmaha caloosha ku sida ilmaha uurka ku jira dhiig karka markuu ku dhaco ilmaha saameyn ma ku yeelan kartaa? nacam way jiraan saameyn dhiig karka haweneyda uurka leh ku dhaca uu ku yeelan karayo ilmaha uurjiifka ah ee markaasi caloosheeda ku jira. saameynta uu ku yeelan karaya waxaa ka mid ah hooyada iyo ilmaha waxaa isaga goosho dhiiggaasi maxaan ku rahdaa iyo ilmahani ku nool yahay. marka ilmuhu wuxuu dhiigga ka qaataa oxygen. haddii maxaan ku rahdaa xididadani ay sameeyaan isku dhac ama isgaraac fara badan oo waxa loo yaqaano vasoconstrictionka ah waxaa dhacayo ilmihii oxygen ku filan inuu gaari waayo. oxygen ku filan markii uu gaari waayo ilmahaas wuxuu ku noolaanayaa xaalad oxygen yari ah ama oxygen la'aan ah. waxaa loo yaqaanaa xaaladaha noocaas oo kale ah chronic hypoxia. chronic hypoxiahaasi waxa uu saameyn ku yeelanayaa ilmaha koritaankiisa. marka waxaa dhici karaya ilmihii inuu kori waayo oo loo malaynayo ilmahan inuu yahay 7 bil laakiin 9 bil uu dhammaystay. dhibaatooyinka kale ku imaan karaya waxaa ka mid ah arrimaha noocaas oo kale ah haddii ay sii jiraan ilmuhu meesha inuu ku dhex dhinto oo markaasi terminology-ga loo yaqaano IUFD meeshaasi u yimaado oo ah ilmahaasi asagoo maxaan ku rahdaa uurjiif ah inuu hooyadii gudaheedii ku dhex dhinto. maxaan ku rahdaa IUFD-gana waxaa laga soo gaabiyey intrauterine fetal death, minkii gudihiisii inuu ilmihii markaasi sida ugu dhinto. sidoo kale waxaa dhici karaya maxaan ku rahdaa abida inay dilaacdo oo markaasi dhiigbax fara badan hooyadii uu ku yimaado oo ilmihii sida asagana uu ku dhinto ama dhibaato weyn ay soo wajahdo
oo ay noqoto emergency in la badbaadiyo ama laga gaari waayo intaba. Dr. Abdulkarim, dhiig karka ma ka mid yahay xanuunada la isku gudbiyo? waxaad weydiisay dhiig karka ma ka mid yahay xanuunada la isu gudbiyo. markii aan ka jawaabo su'aashaasi maxaan ku raahdaa dhiig karku kama mid aha xanuunada la isu gudbiyo, balse waxa uu ka mid yahay xanuunada aan la isu gudbin ee magac ahaan la yiraahdo non communicable diseases, xanuunada aan markaasi la isu gudbin. marka dhiig karku ma aha wax la isu gudbiyo. Dr. Abdulkarim, dhiig karka maxaa lagu daweyn karaa? dhiig karka dawadiisa markii laga hadlayo, dhiig karka siyaabo kala duwan baa loo daweeyaa, laakiin maxaan ku raahdaa mar waliba maxaan ku raahdaa hal meel isugu imaanaya. qofka dhiig kar marba hadduu jiro oo pressurkii ama cadaadiskii dhiigga uu ziyaado yahay, waxa uu u baahnaanayaa qofkaasi inuu helo dawo dhiiggiisii dejisa oo markaasi maxaan ku raahdaayay qofka la siiyo. sidoo kale qofkani wuxuu halis ugu jiraa mar haddii dhiig karkiisii ama dhiiggiisii cadaadiska uu kor u kacay, waxaa ku dhici karaya wax la yiraahdo convulsion ama qalal, oo dadka qaar maxaan ku raahdaa ay dhacdo inay carabka iska cunaan, oo dadka qaar ay dhacdo maxaan ku raahdaa inay dhacaan, oo dadka qaar ay dhici karayso inay miyir beelaan ama maxaan ku raahdaa ogaalku uu ka tago. waxyaabahaasi marka waxaa jiro dawooyin ayagana looga hortago oo maxaan ku raahdaa samayn karaya neuroprotection, neerfihii ka ilaalin karaya inuu qofkii dhaawac uu gaarsiiyo ama maxaan ku raahdaa qofkii uu gariiro. so dawooyinkana in la siiyo qofka waa muhiim haddii dhiig karkiisu uu ziyaado yahay. maxaan ku raahdaa sidoo kale dhiig karka waxaa la aaminsan yahay inta badan markii preeclampsia laga hadlayo in uurkani uu yahay sababta saxda ah ee keentay maxaan ku raahdaa dhiig karka noocani inuu yimaado oo qaadanaya magac loo yaqaano preeclampsia. marka by the time sababtii ay tahay uurkan, waxaa daruuri ah uurkaasi inuu bannaanka yimaado si hooyadii caafimaadkeedii markaasi uu u hagaago. Dr. Abdulkarim, ruuxa la nool ama qaba dhiig karka hadduusan wax dawo ah uusan qaadanin maxaa ku dhici kara? qofka dhiig karka qaba haddaan dawo qaadan, waxyaabaha ku dhici karaya waxaa ka mid ah in xanuunkani ay soo degdegto inuu sii darnaado oo dhibaato gaarsiiyo. dhibaatooyinka maxaan ku raahdaa imaan karaya waxaa ka mid ah maternal mortality, hooyadiiba in ay u dhimato xanuunkii. dhibaatooyinka imaan karaya waxaa ka mid ah waxyaabihii aan kasoo hadalnay oo dhan oo ah multisystem organ failure, xubnihii jirka ku jiray inay fail garoowaan ama shaqadooda ay gabaan. waxyaabaha ku dhici karaya waxaa ka mid ah ilmihiiba in la misgareeyo, la baabi'iyo. dunida waxaa la qiyaasaa maternal mortality-ga maxaan ku raahdaa preeclampsia iyo eclampsia ka dhalanayo inuu ilaa 13% uu gaarayo. ilmaha maxaan ku raahdaa u baaba'aya dunida waxaa loo yaqaano preeclampsia eclampsia, labadaba waxa ay gaari karayaan 30%. maxaan ku raahdaa waa xanuun dhibaato aada iyo aada u badan ku haya dunida hormartay iyo tan soo koraysa intaba. Dr. Abdulkarim, ugu dambeyntii maxaad kula talinaysaa dadka la nool xanuunka dhiig karka ah? maxaad kula talinaysaa? dadka la nool xanuunka dhiig karka ama ayagoo uur leba uu haleelay xanuunka dhiig karka ah, intaba waxaan kula talinayaa in ay isbitaalada tagaan oo markaasi ay iska daweeyaan oo ay qaataan talada dhaqaatiirta. dawo haddii loo qoro dawada sidii loogu qoray inay u qaataan, haddii talooyin kale la siiyo inay kasoo dhalaalaan, haddii la yidhaahdo isbitaalka waqtiga kusoo laabta inay ilaaliyaan ballanta. mar waliba maxaan ku raahdaa in xaaladooda iyo pressurkooda, cadaadiska dhiigga si gaar ah in loola socdo oo laga warayo qofkaasi oo la cabiro dhiigga mar walba ayaan kula talinaya. kaasi wuxuu ahaa Dr. Abdulkarim Axmed Maxamuud oo ka mid ah dhaqaatiirta ka howlgasha isbitaalka Somali Syria Hospital oo aan ka wareysanayay xanuunada ku dhaca haweneyda uurka leh. aad iyaan runtii kaga mahadcelinaynaa sida wanaagsan ee dhakhtarka uu runtii bulshada Soomaaliyeed uu uu kaga faa'iideeyay. daawadayaashana waxaan ka rajeynayaa insha Allah su'aalaha dhakhtarka weydiinay, waxaan rajeynayaa kuwa ka fara badan inay jeceliin in dhakhtarka ay weydiiyaan. insha Allah ta'ala inoo soo qora su'aal walba aad qabtaan. insha Allah ta'ala waxaan idin rajeynaynaa inaan dhakhtarka idinku gudbino isla markaana aad ka daawataan barteena. aad u mahadsantihiin. intaan barnaamijkan mid la mid ah kulmi doono oo walaalkiin Cali Maxamed Jaale dhahaya. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.